waxaa maanta oo bishu ay tahay 10ka bisha 6 sanada 2014 rasmi u furmay shirweynaha saddexaad ee Beelinta Arab ee Afgarad. shirweynahaasi oo ka furmay caasimada gobolka Hawdi Beligwed waxaana shirweynahaasi oo socon doona muddo 4 casho. jidada shirkaasi ayaa sidii beeshaasi ay uga tashan lahayd dinaheeda gaarka iyo weliba horumarka beeshaasi. munaasabada furitaanka shirkaasi oo ay Mr. Salaano soo gaarsiinay ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirada iyo mas'uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland ugu jira beeshaasi salaadiin oqaal waxgarad aqoonyahan qurbo joog dhalinyarada haweenka odayaasha beeshaasi Arabiya weliba boqolaal ergey oo kamid ah beeshaasi. qaana dadweynaha munaasabadaasi soo buux dhaafiyay isaga kala yimaadeen dalalka Ingiriiska, Mareykanka, Norway, Jarmalka, Kenya, Soomaaliya, Djibouti iyo Somaliland. munaasabadan daaha laga furiyay shirweynaha saddexaad ee beelaha Arab ayaa waxaa ugu horeyntiiba ka hadlay suldaanka guud ee beelaha Arab Sultan Omar Sultan Maxamed Sultan Farax waxaana uu halkaasi ka jeediyay hadallo kooban oo ku saabsan allabari madasha ka jeediyay isla marhaantaasina Ilaahay uga baryay in shirkan beeshu isugu timid noqdo kii ay ayahooda kaga tashadaan marhaantaasina ka soo baxaa mid dhal fiican oo bulshadaasi u horseeda baraare iyo barwaaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا البلد يوم تحينا برنامج تيجيو وحاليا شهر السنة الأول إن البريطان كقلب كإيرج البريطان كأكو الواقع لبك المدن dadka mudaadanka Ilaahay abuuray qof walba wuxuu dadka qaar baa hurada inay lacag helaan hurada tahay dadka qaar baa inay magac helaan jimilada tahay dadka qaar baa ay tahay jimiladoodu inay magac helaan dadka qaarna ay hanti helaan dadka qaarna inay xagga Ilaahay u dhawaadaan oo aad iyo aad u himilada koowaad aanu anagu lahayn danoolayaasha nahay waxay ahayd inaanu marin rumayno in dhammaan beeshoo dhan meel isugu timaado taladeeda arrinkeeda horumarkeeda nabadeeda ay ka tashato. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin sanado badan baa kasoo wareegay oo boqolaal sano ku dhow kolkii alla u naxariistay odayaasha qaarkood ay lahaayeen عن بحرس ما أنت من رفقنا مضل الحمد لله رب العالمين. وحالا نتشيء إنه من يهرمر يمرض أنت ما تقال الجنون وحنكسر أولها تعالى شكرا ورفقنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sidoo kale waxaa madasha furitaanka shirweynahaasi saddexaad ee beelaha Arab ka hadlay waxaana suldaankan oo dhawaan lagu calaamad saaray gobolka Togdheer magaalada madaxdiisa madashan uu ka jeediyay hadal kooban oo muhiimadiisu ahayd horumarinta iyo isku duubnaanta beesha Arab. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan u mahadcelinayaa dadweynaha aqbalay inay isugu yimaadaan madashan ee ay ka soo qayb galeen wadatashiga beelaha Arab. taasoo markii ugu horreysay annaga oo bariga Araba aan kaga soo qayb galno annagoo madaxda Soomaaliya. aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa Ilaahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa Ilaahay iyo dadweynahaba sidii wanaagsaneyd ee loo soo dhaweeyey markii aanu soo gaadhay magaalada Beligwed. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waxaana filayaa shirweynahan isku nimi inaan sidii uu u sheegeen saadintii oolasiba inaan meeshan lagu tashanahay cid dhibaatana aan cid jeclayn ee horumarinta dadka iyo dalkaba geesta kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Maxamed Xuseen Xersi oo ku hadlayay afka guddiga qabanqaabada shirweynaha beesha Arab iyo weliba maayarka caasimada gobolka Hawdi Beligwed Cabdi Imaan Farax waxaana si isku mid ah mas'uuliyiintan isaga daba mareen muhiimada shirweynahan ugu fadhiyo beesha Arab iyagoo u soo jeediyay ergooyinka kala gedisanaya shirkaasi ka soo qayb galay in ay ka soo saaraan shirkaasi wax miro dhala. gunaanadkii xafladaasina waxaa hadalka soo gabagabaysay isla marhaantan halkan ka hadashay Adna Aadan Ismaaciil waxaana marwadu si ballaaran ugu noqnoqsatay isla marhaantaasina ay tilmaantay sida laga waarmanka u tahay in beesha Arab ay uga shaqeyn lahayd dinaheeda
sidoo kalena waxay marwadu tilmaantay muhiimada gobolka hawd ee maanta shirweyne uu ka furmay ugu fadhiyo dhismaha qaranka dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana hoosta ka xariiqday marwadu in dalkan xarunta gobolka hawd ee balgubada ay tahay halkii laga yegleelay dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana la'aanteed aanay timaadeen bay tiri in la helo dal la yiraahdo Soomaaliland hadaladeedina waxaa ka mid ahaa $10 bishii lagu daa waxaa lahayn guddi uu gudoomiye dhaxal macay waxaa ninkan xagar samaara cashada ka soo saaray isaga kun baan ka qaadi jiray kuwa kale toban ka qaadi jiray isaga kun baan waxaa nasiib darro waxay naga soo dhex gashay waxyaabahan aynu u baahannahay inaynu maanta iska ilaalino ardaydaa waxaa lagu fuli jiray marka xagee waalid ma leeyahay waalid shaqeeyo ma leeyahay haddii waalidkii shaqeeyo bay ardaygaas inaga mudna inaynu lacag usoo ururno laakiinse ka ama aroonka ah ama waalidkii aanu shaqaynin ama meel weeshlaan ka yahay ama uu xanuunsanayo ardaygaasina yahay arday natiijo wanaagsan keena oo jaamacadda uu ku jiro meel wanaagsan kaga jira kaasina wuxuu raadin jiray 3 iyo 4 bay ahayd waxaa soo dhex galay oo reer jilib hebel waxaa kaga jira nin kaliya jilib hebel kale waxaa ku jira 4 maxaa jilib hebel 4 yeeshay jilib hebelna min yeesh marka waxaa jilib hebelna min yeesh jilib hebelna 3 u yeeshay ama 4 qalinkaa iyo jilib hebel oo 3 iyo 4 ay ka soo galeen oo arday 3 iyo 4 reer oo saboola oo arday wanaagsan la dhalay oo ayada ku sii waran waayay taasoo naga dhigayso isku xidhi doonta magaalooyinka Hargeysa iyo Beledweyne oo dhawaan dhismaheedu bilaabay waxaanay u soo jeedisay ergooyinkii kala gadisnaa ee halkaasi ka soo qayb galay inay u guntadaan isla markaasina ay u kacaan sidii ay wadadaasi u dhameystiri lahaayeen shirweynaha saddexaad ee maanta ka furmay xarunta gobolka Hawd ee Beledweyne isla markaana socon doona muddada 4 maalmood ee beelaha Arab ayaa waxa uu ku soo dhamaaday jawi degan iyo mid farxadeed iyadoo haddii Allah uu dalasan wuxuu maalmaha soo socdaan shirweynahaasi halkaasi si absami ah uga sii socon doono Abdirasaaq Xawti Koronto Somaliland Space Channel xarunta gobolka Hawd Beledweyne